laba su'aal muhiim in isweydiiyo baan sababtoo ah khilaafka siyaasadeed jira dowladda goboleedka Jubbaland dowladda federaalka ka dhacay xilliga doorashada lagu jiro dadkii oo laga mashquulinayo xaaladka lagu mashquulinayo iyo aniga aragtidaan qabo dowladda Soomaaliya ama filla Soomaaliya iyo shabaabku waxay heshiis ku yihiin hadda xaaladda taagan in khalkhal amni laga abuuro magaalada Kismaayo marka waxaan dhihi karaa oo tuwan jira meeshaas inuu xiriir ka jiro khalkhal amni la abuuro hatta dharkan markay wateen waa booliska iskool booliisiya lagu qaybiyay sida hadda la cadeeyay ay ugu dambeeyay la qaybiyay ayay wateen 40 askari saddexna labana waa la dilay halna waa kan isqarxiyay halna nolosha ayaa lagu hayaa marka cadeemahana way soo bixi doonaan iyo xogaha laakiin waxaan aaminsanahay in uu wax soo maleegay ay yihiin oo istiraatiijiyada laga leeyahay ay tahay in la dhaho Jubbaland amni ma aha magaalada Kismaayo doorasho gudaheeda kama dhici karto wax noocaas oo la soo awaawulay inay ka marneen baa meesha ka muuqata marka waxaad qabtaa dawladdu ayaad leedahay arrintan iyada ayaa lug ku leh weerarkan dhacay xiriir aniga shaki nagama jiro in xiriir jiro xogaha aan helayno arrintaas lagu wada shaqeeyo xiriir dawladda iyo shabaab ka dhaxeeya qaraxan lagu maleegay ayaad qabtaa inay jirto adigoo ah xildhibaan ka mid ah golaha shacabka aniga oo ah xildhibaan ka mid ah golaha shacabka waxaan tuhmayaa oo aan aaminsanahay marka ay wataan iyo qaabka loo awaabulay iyo sida madaxtooyadu u fikirayso markaan iska rab dhignay hay'adaha amniga halkaas ka jira doon waxaa jira in arrintaasi relationship uu jiro waana ka hadlaan xildhibaano badan maanta si jira inay ka qabteen waaya marka ma isleedahay qudhaada xildhibaana waxay ku noqon doontaa arrin dembi noqon karta oo su'aasheeda lagu weydiin karo hadalkan haddii aadan caddayn rasmi u hayn waxtuun waxa dambi ugu noqon karta waa dareeska watay dareeska ciidamada booliska federaalka ayuu ahaa lagu qaybiyay xogaa badan way soo bixi doonaan relationshipka meeshaas ka jira waxaana deganaa xildhibaanada meesha deganaan xildhibaano Jubbaland iyo processkeeda taageersan bay ahaayeen meesha hotelka taageergareeyna hotel 99% dadka Jubbaland iyo processkeeda aaminsan bay ahaayeen xildhibaanada macallin aan ku tiriyay waaya xildhibaan xasan yar oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo isagoo ku sugan magaalada Kismaayo kana mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii hotelka cascasay telefoonka iigu warramay xildhibaan aad baad u maasanta